halka uu qaraxu saaka ka dhacay waa iridda baar Itaaliya oo ah maqaaxi aad u mashquul badan waxayna ku dhowdahay goobta laga dukaamaysta ee Muqdisho Mall taasoo ku taala degmada Xamarweyne samata bixiyaasha adeega degdega iyo dadweynaha ayaa burburka ka raadinayay dadkii uu dhismuhu ku dumay Amin Ambulance oo ah ambulance kaliya ee ka shaqeysa magaalada Muqdisho ayaa dadkii dhaawacmay u kala qaaday isbitaalada magaalada sida caadada noqotay qaraxyada inta badan waxa ku dhinta dadka rayidka ah waxaana dadkii maanta halkan wax ku noqday ku jiray haween iyo caruur ilaa iyo hadda xukuumadda Soomaaliya kama aysan hadal weerarkii maanta qaraxani waa kii labaad ee Muqdisho ka dhaca toddobaadkan talaadadii hore ayay ahayd markii gaari lagu qarxiyay goob shidaal halkaasoo ay ku dhinteen 2 qof ururka al-shabaab ayaa si joogto ah uga fuliya weeraro ismidaamin ah iyo dilal caasimadda Soomaaliya amniga qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay hase yeeshee ma aha kuwa joojinaya qaraxyadan oo si joogto ah uga dhaca magaalada Muqdisho sanado badan ayaa ka soo wareegay markii ururka al-shabaab laga saaray magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa saddexdii weerar ee ugu dambeysay waxay ka fuliyeen meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya iyo xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana ku dhintay ku dhawaad 70 qof oo shacab ciidan isugu jira sidoo kale al-shabaab goobaha ay qarxiyeen laba kamid ah waxay ahaayeen maqaayado ay shacab ku sugnaayeen iyo bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale dilkii ugu dambeeyay waxay ka fuliyeen degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sidoo kale ciidamada booliiska ayaa toogtay dagaalamo al-shabaab oo isku dayay in askari booliis uu ku dilo eekis xaruntii hore ee baarlamaanka oo ku dhow godka Jilcow iyo taalada daljirka Daahson dadkii weerarkaasi ku dhintay waxay u badnaayeen caruur dumar iyo dad kale oo shacab ah hase yeeshee al-shabaab waxay sheegeen in ay dileen shaqaale dawladeed iyo askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya saddexdii weerar ee ugu dambeeyay waxay ka dhaceen December ka soo horjeedka tiyaatarka qaranka January maqaayada Bar Italia oo ka soo horjeeda wasaaradda batroolka ee ku dhow ekas xaruntii hore ee baarlamaanka iyo qaraxii maanta ka dhacay Bar Italia oo ka soo horjeeda Muqdisho Mall degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sidoo kalena ku dhow xarunta dawladda hoose qaraxii maanta ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray lana dhigay ka soo horjeedka maqaayad ku taala suuq mashquul badan oo degmadaasi ku yaala waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan 2 hooyo iyo caruur ay dhaleen qasaaraha qaraxan waxaa badiyay dhismo ku soo dumay goobtii ay dadka ku sugnaayeen sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa shacab badan oo isxilqaama ayaa isugu soo baxay inay samata bixiyaan dad ka soo hoos hadlaya dhismayaal soo dumay kuwaas oo badbaado dalbanayay halka هيا وقلنا قلا هل مرة كان قلي مر ثلاثة بقى كده عايزين يقفوا في الترام قلي ها سالي هيا هل مرة هيا حاسدو بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي محمد صلاح يوسف وعماش أنا قعنتي عم قاعد اللي حق فوضى ميدا عن دقيقة حق صوت الضلي لما قفوا داوع أنا واقع هاي ويحكي بالتردد كلا إلى دمشق ومشي كراني وحال الشيء يا إن ضد أيكون شراء إلا يهدا والله واسح ولا الشيء لكن دقيقة إلى هاد والدلو يا حال كتير إنت تلفونه يصور عيان تلفون وداع هو أنا عندي قعنتي يكون مغلي دقيقة يكون مغلي تلف ورا عني قف أنا كسب إحنا ماشي بسم الله مقعي وبلال محمد عيال waxaan ku sugnaa qoobta qaraxa ka dhacay markii uu qarax dhacay kadib qof iga soo horeysay malaha waxaan qasaaro indhaygu saaray 2 qof oo dhaawaca iyo ugu yaraan 7 qof oo dhimasho gaariga qarxayna waa gaari aan la aqoon wax ka haray oo jaba ma jiraan markii ilaa hadeertaan waxaan daabuleynaa qasaari oo geystay qaraxa waxaan ka soo bixinaynaa goobaha dumay dad oo ku hoos jira dadkii goobaha ganacsi ku jiray waxa la sheegayaa inay ku dumeen oo gudaha qaarkood ay ku jiraan qaarna la soo saaray waxaad ka mid tihiin dadkii oo gurmadka fidinay dad ilaa meeqa qof soo saarteen oo indhiina ku aragteen waxaan soo saaray anigu yaraan 5 qof aan soo saaray oo goobaha burburay hoostooda ka soo baxay dadkii meesha ku ganacsanaya kamid ah musiibadan waa musiibo qaran waa markii loo eego dilalkii iyo weeraradii ugu dambeeyay ee al-shabaab ee ka dhacay magaalada Muqdisho ma la oran karaa waxay ku meereysanayaan difaacyada ugu soo horeeya ee madaxtooyada Soomaaliya iyo xarunta maamulka gobolka Banaadir sida ay dad badan qabaan su'aashaasi waxa weydiiyay Colonel Cabdi Aadan oo ka tirsan saraakiishii hore ee militariga Soomaaliya asaas way waxa way dhacdooyinka dhacay oo dhan hadda armaas way madaxtooyadii maaragtay qatar ku jirta magarat والله ولا شقين العون ayadaha oo ana wada shaqeynayni guddiyaasha wada shaqeynayni
wax maaragtay haddii oo maaragtay wada shaqaynaya inay jirin oo wax la tirkoobaya ama la daba socdo ama lala xisaabtamayana inay jirin waxyaabahaas iyo waxyaabo kale imaanaya ma garata qaraxii maanta ka dhaca magaalada muqdisho waxa uu qaraxyadii kale uga bedelnaa ninka gaariga qaraxa waday ee ku baakimay maqaayadda horteeda waxaa dareemay shacabka ka hor intuusan qaraxa dhicin su'aale ay hoos iska weydiiyeen kadib waxaa u suurto gashay dhowr qof oo ka mid a dadkii maqaayadda ku sugnaa inay u yeeraan ciidamada booliiska Soomaaliya laakiin nasiib darro ka hor intuu aysan ciidamadu soo gaarin goobtaas ayuu ninkii baxsaday qaraxiina dhacay dad shacab ah ayaa ka daba cararay ninka uma aysan suurto gelin inay gacanta ku soo dhigaan muqdisho qaraxyada ka dhacaya waxa ugu badan ee ku dhinta waa shacab sidoo kale dilalka ugu badan waxaa loo geystaa dad shacab ah oo ku nool magaalada muqdisho ma muuqato rajo dhow oo lagu dhammayn karo dhibaatada mahadhada ku reebtay shacabka Soomaaliyeed inkastoo ay wadaan ciidamada Soomaaliya dadaallo wax looga qabanayo dhibaatada ka jirta magaalada muqdisho alxamdulillaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا sida laga wada warqabo cadawga islaamka iyo kan ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed wuxuu ku ballamay in wax walba oo bulshadaas muslimiinta ah ay leeyihiin in ay ku xadgudbaan waxay ku xadgudbeen diintii ummadeena dalkoodii naftoodii iyo deeqdoodii intaba waxaa laga wada warqabaa in ilihii dhaqaalaha waddanka uu cadawgu gacanta ku dhigay inta badan kaabayaashii dhaqaalaha iyagaa la wareegay dadkii muslimiinta Soomaaliyeed ee ilahaas dhaqaalaha iska lahaana way ka baahan yihiin nimcadii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku galadaystay markaan leenahay cadawga ulama jeedno oo kaliya kuwa shisheeyaha ah ee wadamada kale nooga soo duulay balse waxaa ku jira kuwa murtadiinta ah ee iyagu sabab u ahaa in shisheeyahaasi la wareegaan hantidii ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed kuwaas cadawga ay ku tirsan yihiin waliba iyaga kuwa shisheeyaha ah ka sii daran sidaas daraadeed mujaahidiintu horay waxay u soo saareen digniin ku socota shirkadahaas calooshood u shaqaystayaasha ah waxay uga digeen inay ku soo dhiiradaan boobkaas ay doonayaan inay ku sameeyaan khayraadka ummadda muslimka ee Soomaaliyeed digniintaas iyada ah qaar ka mid ah calooshood u shaqaystayaashaas dhigaha ayay ka furaysteen waxayna ku sii socdeen qorshihi ay lahaayeen ee ahaa inay deeqda Allah subhanahu wa ta'ala oo dadkaas muslimiinta ah ku galadaysay ay ka boobaan iyagoo waliba awood ciidan adeegsanaya iskala soo hormariyay murtadiin damiir laawayaal ah oo diintoodii dalkoodii iyo dadkoodiiba iibsaday shirkadahaas cadow shaqaystayaasha ah ee aan ka hadlayno waxaa ka mid ah shirkadda lagu magacaabo DP World taas oo laga leeyahay waddanka Imaaraadka shirkadaas waxay qorshe ku qaadatay inay la wareegto dhammaan dekedaha ku yaala dalkan Soomaaliya dekedaha ay hadda qabsatay waxaa ka mid ah dekeda Boosaaso halkaas oo durbadiiba gumaysigii laga filayay ay ka bilowday waxay cayrisay qaar badan oo dadkii muslimiinta ahaa ee dekedaas ka xamaalan jiray ah waxay canshuuro xad dhaaf ah ku soo rogtay dadkii ganacsatada ahaa ee dekeda wax kala soo degayay waxayna dhuunta qabatay dadkii kalluumaysatada ahaa ee ka shaqaysan jiray badda ku dheerarsan xeebta magaalada Boosaaso intaas kuma aysan ekaysanin markii dadkii dulmanaa ee reer Boosaaso ay ku mudaharaadeen iyagoo doonaya inay xuquuqda ay ku leeyihiin dekedooda iyo baddooda ay helaan waxa ay shirkadu ku soo dalbatay calow shaqaystayaal hubaysan
kuwaas oo dadkii dulmanaha ahaa rasaas la dhacay halkaasna khasaare dhimasho iyo dhaawac ugu geystay taas oo qulubta mujaahidiinta xanuujisay. haddaba mujaahidiintu iyagoo ka jawaabaya cabashada dadkaas muslimiinta ah ee xoogga loo sheegtay ayay maantay oo ay taariikhdu tahay 29 Jamaadul Awwal 1440 waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen dekada Boosaaso. waxa ay mujaahidiintu beegsadeen gaal saliibi ah kaas oo madax ka ahaa shirkadda DP World, wakiil looga ahaa qorshe loogu talagalay in muddo 30 sano ah shirkadaasi ku haysato dekada Boosaaso, hantida ka soo baxdana ay iyadu qaadato. howlgalkaas si guul ah ayuu ku soo dhamaaday Allah fadligii. gaalkii saliibiga ahaana halkaas ayuu ku dhintay. ninku xigeen u ahaa oo isaguna hindi ahaana waa la dhaawacay. murtasaqadii ilaalada u ahayna halkaas ay iyaguna ku dhaawacmeen. Allah subhanahu wa ta'ala raggii amaliyadaas qorsheeyay iyo kuwii fuliyayba ha barakeeye. mujaahidiintu ujeedooyinka ay u taagan yihiin ayay ka qayb tahay in khayraadka ummadda islaamka ah la difaaco, sida loo difaacayo diintooda, naftooda, sharafkooda iyo caqiidadooda intaba. cadowga hungurigu wado ee doonaya inay hantida muslimiinta boobaan waxaan ku leenahay waad ku dhimanaysaan ee kuma naaxisaan insha Allahu ta'ala. hanti raggii lahaa soo taagan yihiin ha ku riyoonina inaad si sahlan ku qaadataan. ha ku kadsoomina shakhsiyaadka murtadiinta ah ee dowlad ama maamul goboleed sheegta ee idin sheegay inay idin xalaaleynayaan boobka aad ku haysaan hantideenna. kuwaas dalka ma matalaan, dadkana ma matalaan, adinkayna idinka tirsan yihiin, ummadda Soomaaliyeedna uma xisaabsana. dadka muslimiinta ah waxaan leenahay marnaba ha u dulqaadanina in nimcooyinkii Allah subhanahu wa ta'ala uu idinku deeqay ay cadowga idinka maquunsadaan. qof walbana waxaa la gudboon inuu arrinkaas ka dhiidhiyo. waxaa idin soo tashtay waa gaalo noocyadeeda kala duwan iyo madax ku sheeg murtadiina, kuwaas oo iyaga oo baasaboorro ajnabi ah wata una soo dhaartay inay wadamadaas ay baasaboorradooda soo qaateen daacad u noqonayaan, doonayaan inay dhulkiinii xaraashaan, cadowna u gacan geliyaan. kadibna markay qandaraasyadooda dhammaystaan wadamadii ay ka yimaadeen dib ugu laabtaan. cidda keliya ee dhibaatada looga tagayaana waa ubadkeenna kuwa hadda jooga iyo jiilka soo socda labadaba. waxaan idin leenahay ka dagaalama arrinkaas. mujaahidiintuna waa idin garab taagan yihiin mar walba insha Allah. dadka muslimiinta ah ee reer Boosaaso waxaan ku leenahay mujaahidiintu wacad bay ku mareen inay idinkaga aargudaan cadowgii hantidiinii dhacay, dilka iyo xarigana idinkugu daray. mar haddii gaalkii ugu sarreeyay cadowgaas uu dhiiggiisu hortiina ku daatay, waxaa hubaal ah in maanta laabtiinu qabowday. balse hawshu kow ma joogtee raggaas walaalihiina ee mujaahidiinta ah garab istaaga si cid walba oo mashaariicdaas guracan ku lug leh tallaabo adag looga qaado insha Allahu ta'ala. waxaan mar kale dignin u jeedinaynaa dhammaan shirkadaha murtasaqada ah ee ku sugan ciidda Soomaaliyeed. waxaan idinku amraynaa inaad joojisaan bililiqada aad ku wadaan dhulalka muslimiinta Soomaaliyeed ee aad xoogga ku joogtaan, si degdeg ah dalka uga baxdaan. haddii aad sidaas yeeli weysaan, gacanta dheer ee mujaahidiinta waa idin soo gaaraysaa Allah idankiisa. meel aad ku badbaadaysaanna ma laha. shirkadaha saliibiyiinta ah ee hadda kadib u soo socda waxaan ku leenahay laa marxaban bikum, la idinkama soo dhowaynayo dalkan muslimka ah ee Soomaaliyeed. waxaan ognahay in hadda la qorsheynayo in shir la doonayo in lagu xaraasho shidaalka Soomaaliyeed oo maalmahan soo socda ka dhici doono London. waxaan leenahay wax walba oo ka soo baxa shirkaas waa xaaraan, mana suurtageli doonto in hagardaamadaasi laga dhaqan geliyo dhulka Soomaaliyeed. kuwa gaalada ah ee u soo hanqaltaagaya inay qorshahaas boobka shidaalka Soomaaliyeed ah soo qaataan, ha ku waana qaataan gaalkii saliibiga ahaa ee maanta xaruntiisii shaqada magaalada Boosaaso lagu dilay. adinkuna sidaas ayaad ku dambayn doontaan haddii aydan ka waantoobin insha Allah. wa aakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbil caalamiin.